السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي. waxaan rajeynaa inaa ii fiican tihiin. Ana alxamdulilah waa fiicanahay baa mahadle. Maanta waxaan ka hadlaynaa timaha low porosity qabaan. Timaha low porosity qabaan maxaa waaye? Gabdho badan ay soo weydiiyeen. Waa timo oo nafaqada aan kaa qaadanaynin oo haddana korka hore markii laga fiirinayo waxaa u malaynaya inay dhalaalayaan laakiin gudaha nafaqa ma helaan, qoyaan ma helaan. Markii qoymaan waqti dheer ayay ku durayaan qoyaankaaseti, macnaha waa tin nafaqada kaa qaadanaynin porosity-ga. Marka aan research soo sameeyey aan soo fiiriyeyna waxaa keena waxa waaye dadka qaarkood waxaa lagu dhahaa Google aan soo fiiriyey, dadka qaarkood waxay sheegaan inuu qofka genetic ahaan ugu dhashtay laakiin waa wax la daaweyn karo. Kuwa qaarkooda kale waxay dhahaan maxay ahaydee waxaa keenayso waxaa keenayso nafaqa la'aanta keenayso. Waxaa keenayso timaha dayacdarsan, kiimikaalka badan, saliidda adeegta isticmaalaysid waa soo sheegaa saliidaha aan u baahnayn inaad isticmaalin. Saliidda adeegta isticmaalaysid waxaas ayaa keenaayo inay tintaada hadhow low porosity kaa noqdo oo biyihii iyo qoyaankii tintii kaa qaadanaynin, tintii nafaqadii ma kaa qaadanayso. Marka laakiin waa la daaweyn karaa good news, waxyaabo dabiiciya badan lagu daaweyna waa jiraan. Waxaa ka mid ah soo hadda maxaa la sameeyaa si iskaga daaweynaysaa haddii aad tahay qoftiisa low porosity ay leeyihiin. Marka waxaa iskaga daaweyn kartaa dacarta. Dacarta way fiican tahay. Jeelka dacartiisa haddaad Soomaaliya joogtid, jeelka dacartiisa ma jeedaa ayaa soo qaadaysaa, jeelka biyaa ku daraysaa, biyaa ku cufinaysaa, Sprite ayaa ka dhigaysaa, timaha waa ku buufsanay, kadib massage yar aa ku samaynaysaa, isbuuc hal mar aa ku samaynaysaa. Intaadan dhaqin ka hor ayaa dacartaas ku qasaysaa markaa ku wada buufisid tintaada oo dhan. Intaadan shampoo iyo wax kale ku dhaqin ka hor ayaa samaynaysaa. Waxaa kaloo samayn kartaa rosemary. Rosemary aad uu fiican yahay. Asiga waxaa ka samayn kartaa infusion oo ah inaad biyo ku karkarisid, aadna mu karkarinaysid because nafaqada ay ka dilmin. Inaad biyo qandac ugu dhigtid, markay qandac noqdaanna inaad geed ku shubatid oo tinta ku buufisid. Asigna sidoo kale sida dacarta camal aa samaynaysaa. Intaadan oo tinta dhaqin ka hor ayaa ka dhaqaysaa. Waa ku buufinay, waa ku masaajareynaysaa timahaada oo dhan and then waa ka dhaqaysaa. Marka hadda waxaa ku soo hartay saliidyaalka isticmaalaysid. Haddii qof tintiisa gabar tinteeda low porosity qabta tahay ee nafaqada kaa qaadanaynin ee wax kasta kaa nuugayaa, saliidaha u baahan tahay inaad iska ilaalisid waa saliid qumbo. Saliid qumbo culays ay ka dhigay tintaada, adeeg ay ka dhigay. Marka asxaabtay sidaan sheegaynay saliid qumbada iska ilaali hadday tintaada low porosity tahay ee nafaqadii wixii kaa qaadanaynin iyo qoyaankii wixii aysan helaynin. oo haddii qoyaan noqotana waqti dheer ku qaadanayso inay ku dhex jirto, then markaas waxaa u baahan tahay saliid qumbada iska ilaali. Saliid qumbada haddaa qof low porosity tahay, saliid qumbada ma kuu fiicno, tinta adeeg ay kaaga dhigaysaa, wayna kaa sii haleynaysaa. Marka iska ilaali saliidaha culeyska sida saliidda qumbada. Saliid culeys waa qumbaha, uma fiicna haddaa low porosity qabtid. Iyo waxaa iska ilaalinaysaa saliidda castor oil. Castor oil iyadana culeys waaye. Haddaa low porosity qabtid, castor oil iyo saliid qumbo maanta ka bilaawdo faraha ka qaad, kuma quseeyaan saliidaada maahan. Hadda saliidee isticmaalaysaa marka haddii aad tahay qof tinteeda abaayo tinteeda low porosity tahay. Waxaa isticmaalaysaa saliidda moringa saliideeda isticmaalaysaa. Inta kore moringa waa soo geliyey maasha Allah, waa si aad ugu fiican tahay maaskigeeda, tinta waa qurxisaa. Anoo ujeedin timihi waxyaabo dabiici aan ku qurxiyaa. Soo saliidda moringa waa marsan kartaa, waa khafiif waaye, tinta ma kaa haleynayso, low porosity mahayna aad ay ugu fiican tahay. Saliidda moringa xabasooda haddaa isticmaalaysid wax yar isticmaal, ha badanin. waxaa kaloo isticmaali kartaa saliidda looska, saliidda almond oil aad ay ugu fiican tahay haddaa low porosity qabtid. Jojoba oil saliidda ayadana way fiican tahay maasha Allah. Inta kale waxyaabaha kale haddaan soo helana hoos waa idinku soo qorayaa, iisoo wada sheega insha Allah. Marka waxaan dhahnay jojoba, almond oil, moringa oil aad ay u fiican yihiin. Waa saliido khafiif ah oo culeys ku dareensiinaynin tintaada haddii low porosity tahay, oona aad kugu fiican tahay isticmaali kartid. waxaa kaloo tinta oo low porosity ugu fiican
وبريس إن شاء الله هالمرة سوقلنا بريس لقصايا وطمي شمبر لقصايا عندين بيسا قاديسا تنتا ياك بوفينيسا انت هذا ندقين كهر ياك بوفيني مساج ياك سمينيسا وحاك دافنيسا طمي 5 دقيقة 30 دقيقة waxaan leenahay ilaa 30 daqiiqo ku dhaafaysa kabacdi shaambaas ka yaraqaysaa bariiskaas la qasaayo sidaa u qasaayo waa soo gelinaa tumay 5 bar kabacdi siduu noqdana waa idin tusayaa next video insha allah marka bariiskaas wuu fiican waxaa kaloo fiican danta loo bursatay oo dabiici ah malabka wuu fiican yahay asigana malab iyo natura isku darsanaysaa asagna tinta maaska ahaan ayaa isticmaali kartaa burka shumburaha ku darso burka shumburaha wuu fiican yahay ha hilmaamina timaheena borotiin aad ugu fiican yahay tinta borotiinka wuu u baahan tahay soo burka shumburahaas aa ku darsan kartaa iyo malabka iyo natura maaska ahaan aa ka dhiganaysaa waa ku qasaysaa haddaa su-aal kala qabtiin hoos igu soo sheega insha allah marka waa kaas asxaabteyda insha allah wayna video kaleete like share haddii aad wax aad qabtid su-aalo comment igu soo qora maalin wanaagsan meel kasta joogtaan